السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مeel kas dunida ka joogtaan ku soo wada maanta iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ciyaaruhu waanu soo qaadan jirnay haday ahaan laayeen kooxaha xulalka ciyaartooga xasuusii hore taariikhi ciyaartoogu recordskii weynaa wax badan baanu soo qaadan jirnay waxaan maanta u jilaacaynaa dhanka iyo horyaalka La Liga waxaad u maleynaysaa taariikhda horyaalka in lagu kala qoray Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ugu badnaan Messi ayaa taariikhda horyaalka ay qaatay hadda waxaan soo qaadan doonaa dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee ka dhacay taariikhda La Liga recordsidii ugu weynaa ee taariikhda La Liga ilaa hadda yaala iyo ciyaartooyga sameeyay baan soo qaadan doonaa Real Madrid ayaana ah kooxda ugu haysashada badan horyaalka wadanka laakiin ciyaartooyga Barca u ciyaara ee Messi ayaa ah ninka ku lug leh recordska ugu badan taariikhda waana sababta ugu leeyahay madaxweynaha La Liga Madrid wuxuu yiri abaal buu u galay Messi horyaalka inuu leeyahay ma aqaan buu horyaalka La Liga sidoo ahaan lahaa laanta Messi waxaanu uu Messi ka sameeyay La Liga wax aan inaba caadi ahayn taariikhda isba marka laga sheekeynayo Leo Messi qayb weyn buu ka leeyahay balaaran buu ka leeyahay hadaba La Liga iyo maanta Ronaldo xataa liiska uu ku jiraayo wax badan isaguna sameeyay ayaanu soo qaadan doonaa labada nin ee dunida maamulaya taariikhda Spain qayb weyn bay ku leeyihiin warada channel-ka cusub saaxiib noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka sportiga taariikheed recordska iyo entertainment-ka waayahay waxaanu eegi doonaa La Liga horyaalka Isbaanarka Spain waxa hadda lagu tilmaamay inuu yahay wali horyaalka number 1 adduunka Ingiriiska baan soo laabaya lagu leeyahay Isbaanarka wali wuxuu ka sareeyaa horyaalada kale ee qaaradda Yurub lagu leeyahay Isbaanarka kooxda ugu qaadida badan horyaalka Spain taariikhda La Liga waxa lagu leeyahay waa Real Madrid waa nimanku qaaday 33 jeer halka kooxda kubadda cagta Barcelona ay tahay kooxda labaad ee La Liga ku qaaday 26 jeer marka Madrid waa 33 jeer bay haystaa horyaalka Spain halka Barca haysato 26 jeer waa labada kooxood marka ugu guulaha badan horyaalkan Spain taariikhiyan laakiin ogow Real Madrid maadaama ay tahay kooxda ugu qaadida badan horyaalka wadankan oo 33 jeer ay qaaday La Liga hadda ogow Real Madrid waa kooxda qura ee taariikhda La Liga min 5 sano oo xiriir qaaday tiro 2 jeer oo kala duwan horyaalka La Liga u jeedo barnaamijka Barcelona uu jaban yahay horyaalkan oo sanadii saddexaad xiriir bay hadda doonayaan La Liga ay ku guuleystaan laakiin waxa uu leeyahay taariikhda Spain consecutive sanado xiriir ah in horyaalka la qaado kooxda ugu badan ee sameysay waa Real Madrid 5 jeer oo xiriir bay hadda ka horyaalka Spain qaaday hadda waa 5 jeer yaa qaaday Real baan ku leeyahay Real war hadda yaa qaaday Real hadda waa 5 sano oo xiriir bay hadda kor Madrid istuu qaadeen La Liga ma ahan markii ugu horeysay kaliya 2 jeer oo min 5 jeer oo kala duwan bay Madrid qaadeen La Liga marna 5 xiriir bay qaadeen marna 5 jeer xiriir bay qaadeen aan ku xasuusiyo 60kii 61 لحظة يلا بادي لحظة يسدحدي لحظة أفرتي لحظة شنتي مر بيشان حر قادن مر كلا يبي هدا قادن سديتي شنتي سديتني لحدي سديتني تضبدي سديتني يسديدي يسديتني يسقالكي مرنا شن حرير مرنا شن حرير تاريخ كوحدة قورة شن سنة حرير قادي ولي بالله بجر أو كلا دوان La Liga وريال مدريد وأنا كوجو هيسجل بدن كوب كان ولو برشة يسول الله بيسو waxaana jira saddex kooxood oo taariikhda La Liga aan wiligood heerkoos u laaban baa jira ahna kuwa ugu badan ee ka soo qayb galay horyaalka Spain waana tan iyo 1929kii ilaa yaalan waa Athletic Bilbao Barcelona iyo Real Madrid waa kuwa ilaa hadda ka soo qayb galay La Liga tan iyo 1929kii waa muddo 88 jeer bay ka soo qayb galayeen horyaalkan way marna ka maqneen taariikhda kooxda ugu guulaha badan Isbaanarka horyaalkoodu yaani guulaha kulamada inta la badiyo Madrid baa kooxda ugu guulaha badan taariikhda La Liga 1687 gool bay Madrid ka gaartay ciyaaraha kan Isbaanarka sidoo kale Madrid waxa la wadaaga Barcelona record-ka ah in la badiyo xilli ciyaareed kulamada ugu badan waana min 32 jeer Real Madrid baa record haystay 2021 Barcelona 2022 jibisay xilli ciyaareed in la badiyo 32 ciyaarood weeyaan waa kay kooxda iyana ugu guulaha xiriirka badan kulama xiriir ah taariikhda Spain waxa inta badan ku leh Barca Real Madrid baa ugu xoog badan waa labada kooxood ugu badan iyagu bay inta badan ciyaartoygooda iyo koox taariikhuba ka iman karayaan tusaale ahaan kooxda guulaha ugu badan xiriirka gaartay Liga taariikhda waa Barcelona 2010kii bay sameeyeen 16 xiriir bay gaareen oo guul ah laakiin Real baa bareejisay 2016 oo inuu sidaa oo kala sameeyay dhan kalena taariikhda kooxda kubadda cagta La Liga awood u yeelatay xilli ciyaareed kasta kulanka ugu horeeyay inay guul ku furato kulan sanado badan oo xiriir ah waa Barcelona 10 sano xiriir bay Barcelona guul ku furnaysay laga soo bilaabo 2009kii ilaa 2018 waa xilli yaani horyaalka kulanka koowaad in la badiyaa Barcelona waxa ay sameeysay
toban sano oo xiriir ah 10 sano kulanka furitaanku marna Barca bareej ma galinin man laga badinin oo gulbi ku furnaysay waa nimanka rekoorka haysta halka Real Madrid ay tahay kooxda dhibcaha ugu badan liiga ka heshay taariikhda wana 4293 dhibcood intaan ku gabagabayno qaybaha kooxaha iyo waxyaabaha gaarka ay sameeyaan hadii aan wadna shakhsiyaadka ila liiga waxa lagu leeyahay horyaalka la liiga taariikhda ninka ugu goolasho badan waa ninka gaaban ee Messi waa ninka dhaliyay 421 gool waxaad kala ogaataa waa ninka 3 sano xiriir ku guuleysanaya kabta dahabta Yurub goolinteeda oo dhan 2006 2007 iyo 2008 2009 waa ninka ka ciyaaray Spain Lionel Messi wali waxa lagu leeyahay ninkan gaaban waa ciyaartoyga ugu horeeyay ee 300 oo gool liiga ka dhaliya 300 oo gool waa ciyaartoyga ugu horeeyay ka dhaliya liiga ninka gaaban ee Messi wali waxa lagu leeyahay waa ciyaartoyga qura ee 350 gool oo liiga gaara weeyaan ninkan gaaban ee Lionel Messi waana ninka taariikhda horyaalkan la liiga xil ciyaareed ku qaada goolinteeda gool aan hore lagu qaadin waa ninka goolalinta la liiga ku qaaday goolasho ugu badnaayo waa ninka 50 gool ku qaaday goolintii la liiga 2011 iyo 2012 ma uu raba gaabka muxuu raba in sheeg ka lugaha man berigaas lama celin karaya lama dhaw karin waa markuu mucaaradku wala yiraahdeen ilaahow kana nacnay bay yiraahdeen mucaaradka kuwa Barcelona waxay arkaan waa la yaabay dikan aadi maanu ahayn waa ninka taariikhda goolinta liiga ku qaaday qof bini'aad intaan goolan lagu qaaday oo imise la dhaliyay kota gool war waa inta laba xil ciyaareed horyaal goolinteeda lagu dhaliyo weeyaan waxaad arkaysaa horyaalada Yurub markaad fiiriso nin baa 20 gool ku qaaday haddana xilliyeedka 20 gool ku qaadaya asagu wixii laba xilliyeed lagu qaban lahaa horyaal ayuu hal xilli ciyaareed kota gool ku dhaliyay waa waxyaabo mucjisada ah ee ninkan la liiga ku reebay weeyaan waana sababta ay la liiga ugu faanaan isaga in uu yahay kii ugu fiicnaa ee horyaalkooda soo maray sida waxa ka dhawaajiyay madaxweynaha xiriirka la liiga Spain Javier Tebas oo maalin xataa yiri war Messi waxaad noo sheegtay wiir maalin inaad naga tagi rabtay liiga naga tagi rabtay war waa ku barin naga tagi muuri hada kadib anaga ku gorab istaageen markii Messi canshuuraadka lagu qabsaday ee canshuuraadka lagu cadaadiyay ee maxkamad la saaray Spain ka ordu doonay marka maalin cadeymay wuxuu wax liiga canshuuraadka Spain ay ugu haysteen inaan ka baxsadaan doonay wiir Spain ka tagay Barcelona hada madaxweynaha liigu ka jawaab wuxuu warniyo naga tagi ku baraynaay horyaalka adiga nooc cimadaye wax kasta anaga ku sameeyno garab ku siinayna hada naga tagi muuri marka waa ninka kota gool la liiga ku qaaday goolintiisa weeyaan wali waa ninka hal sano taariikhda koox Spain in uu ciyaaray ama taariikhda kubadda cagtaba waa ninka hal sano goolasho ku bada dhaliyo waa ninka dhaliyay 91 gool sanadkii 2012 wuxuu rabaa gaabka adduunka waa soo waalay bariyan sana lagu rooyaa macna in hadda bariyan wuxuu noqday bini'aadam bariyan hadda wuxuu muuqdaa bini'aadam caadi u muuqdaa Messi waxa lagu tilmaamay inuu bini'aadam cayn xataa ninka waa laga yaabay bini'aadamnimadiisu dadku way ka shakiyaan hadda wuxuu muuqdaa bini'aadam caadiya bini'aadamku caadiga mar waa kufaa mar waa dhacaa mar waa dhaawacmaa mar wuu dhaliyaa marna wuu dhumaa hadda marka qaar Messi wuu dhumaa gool ma dhaliyo marka qaar habeenada loo baahan yahay bini'aadam caadi u muuqdaa macna markaas looma dhawaa karin hor 9 iyo koob gool baa sanad la dhaliyay 2010 konton baa la liig lagu qaaday taariikhda ninka ugu hadriga badan la liigo waxa weeyaan Master Cristiano Ronaldo la liigo wuxuu ka dhaliyay 34 hadrig buu ka dhaliyay la liigo marka ninka ugu hadriga badan la liiguna meel ku qoran waa Cristiano Ronaldo ninka 3 hadrig waxaan mar dambe la siray arbaba hadriga la bedelaa 3 gool laga kordhiyaa maxaa yeelay hadriga u fuuda waa ninka la liigo ugu hadriga badan baa lagu leeyahay 34 hadrig buu dhaliyay Cristiano Ronaldo sidoo kale Messi ayaa taariikhda la liiga kulamo badan inta laga soo muuqdo gool la dhaliyaa waa ninka 21 kulan gool dhalinay laga soo bilaabo kulankii 11aad ilaa ay kulankii 34 gool dhalinay macna waa marka ninka taariikhda horyaalka Spain iyo horyaalada Yurub oo dhan ugu horeeyay 21 kulan oo xiriir gool dhalinay horyaalka dhalinay ma ciyaaraha waa dhali hadana ma ciyaari waa dhali waa ku bari haydin waa dhali waa ku dhaha waa dhali ma idii karto ku dhaha waa dhali 21 ciyaarood oo suxiga ayuu horyaal gool ka dhalinay kulankii 11aad ka bilow ilaa iyo kii yaani soddon afraad buu geeyay xilaareedka 2023 buu ahaa 21 kulan xiriir baa gool laga dhalinay la liiga 33 gool uu dhaliyay 21 kaas kulan 33 gool ayuu ka dhalinay la liiga ninkan caadi ma aha gaabka ma garanaysa inuu yahay Cristiano Ronaldo taariikhda ciyaartooyga ugu dhaqsiyaha badnaa 20 gool hal xilaareed kaga dhaliyay horyaalka 20 gool baa hal xilaareed waxa lagu dhaliyay mataqaana 12 kulan Cristiano Ronaldo xilaareedka 4 odagu waa laga yaabay Ronaldo 12 kulan 20 gool uu dhaliyay macna inaba caadi maan wahay Cristiano marka waxa uu yahay taariikhda 20 gool ugu dhaqsiyaha badan liiga ninka dhaliyay waa isaga 12 kulan bay ku qaadatay
ogowna ciyaartoogii 150 gool ugu dhaqsiyaha badnaa la liigu gaaray wuxuu ahaa Cristiano Ronaldo wali wuxuu ahaa ciyaartoogii 200 ee gool la liigu ugu dhaqsiyaha badnaa gaara isla Ronaldo buu ahaa xitaa wuxuu ahaa ninkii 250 gool la liigu ku gaaray kulamo yaro isla Ronaldo buu ahaa xitaa wuxuu ahaa ciyaartoogii 300 oo liigu ku gaaray kulamo yaro 266 kulan bay ku qaadatay intaas dhaqsi gool waxa ku gaaray Ronaldo waa nin aan caadi ahayn maxaa yeelay isagoo la liigu dib ka yimaaday ayuu Messi goolalinta kula tartamayo yani taariikhda la liiga laga dhaliyay macna uu dhaqsida goolasha loo dhaliyo yani 300 oo gool liiga kaga tagay Ronaldo iyo ka badan dhanka kalena ninka ugu direct free kick badan la liigu ninka ugu bulshoon dhalinta badan la liigu taariikhduna waa Messi ninka dhaliyay 31 bulshoon weeyaan ninka gaaban Messi oo bulshoonka ayaan tan rigoor uu noqday halka ninka ugu rigoor dhalinta badan la liigu taariikhda uu ahaa ee goolasha ugu badan ku dhaliyay rigoore uu ahaa Ronaldo oo 61 gool rigoor ku dhaliyay waana ninka taariikhda ugu rigoor qaadashada badnaa la liigu 72 rigoor ayuu qaatay ma garanaysaa ciyaartoogii ugu da'yara ee taariikhda la liiga 200 oo gool ku gaaray isagoo aad u da'yar ninkii ugu da'yara 200 la liigu ka dhaliya Messi buu ahaa isagoo 25 sano jira iyo 7 bilood 2003 Messi 200 horyaal buu haystay shaqa ka go'an gaabka sidoo kale waxaan ku xariirinayaa dhacdooyin yaab loo ninkan gaabka xiriirsaday maxaa suusataa oo waxaan ku leeyahay ninka ugu guulaha badan yani ninka ku guuleystay xidiga ugu fiican sanadka la liigu waa Messi 8 jeer buu ku guuleystay walmarinta xidiga sanadka ugu fiican la liigu 8 jeer buu ku guuleystay sidoo kale weeriyaanka ugu fiican la liigu 9 jeer buu ku guuleystay waana ciyaartoogii ugu horeeyay 15 sano xiriir goolka dhalinayay horyaalkiisa Spain inta in ka badan ayuu gaab ku sameeyo anu ka gaaray bayaa inta ku gabagabayno ku kaabino hadaba yaa ugu gool badan yaa ugu koobab qaadid badan horyaalka la liiga ninka ugu koob qaadid badan la liiga waxa weeyaan nin la yiraahdo Francisco Gento Real Madrid buu qaaday 12 horyaal buu qaaday waxa ku soo xigay Messi oo isaguna 10 horyaal u qaaday kooxda kubadda cagta Barca ninka ugu goolasho badan taariikhda la liiguna waxa weeyaan Lionel Messi oo dhaliyay 421 gool Ronaldo wuxuu dhaliyay 311 gool Sara ayaa ku xiga Sanchez Raul De Stefano iyo kuwa kale badan ciyaartoygu hadriga badan la liiguna Ronaldo ayaa 34 hadrig haysta Messi 36 hadrig Telmo Sar 23 hadrig Alvaro Di Stefano 22 hadrig Mundo 19 hadrig Cesar 15 hadrig Frank Busquets 12 hadrig Cabula Benino oo min 12 oo lagu daray Manuel Banes Quino 12 uu haysta Ronaldo hadrig wuxuu ka dhaliyay liiga 34 jeer oo hadrig buu dhaliyay halka Messi 33 uu joogo hal jeer buu u baahan yahay Messi si Ronaldo u gaaro loo baahan yahay si Ronaldo u dhaafo inta ku dhaafno wax walba ku saabsan dhacdooyinka waaweynaa ee taariikheed horyaalka liigu uu leeyahay ee records ka caanka ah ee liigu meel u yaala